munaasabad lagu weyneynaya dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay hotel Maasoor ee magaalada Hargeysa. munaasabadan lagu weyneynaya dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, qaar ka mid ah culimada dalka, salaadiin, abwaano, mas'uuliyiin ka socda wasaaradda diinta iyo awqaafta, ardayda wax ka barata madaarista kala duwan ee magaalada iyo boqolaal qof oo kale u heelan weyneynta iyo kor u qaadida dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. munaasabadan lagu weyneynaya dhalashada nabiga ayaa waxa la ka soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, waxaana hadaladoodii kamid ahaa waa maalin la xusaayo mawlidkii nabiga oo inagu qaalaya. anuu hadalka badin maayo, waxaan laakiin ka taabanayaa laba kelmadood oo keliya. ilaahay wuxuu yidhi diigaagaan kor u qaaday, ayaan doonayaa inaan ka taabto kelmatayn. iminka halkaa waxaa ka socday TV Australia habeen bay gashay, innagu waxaan ku jirnaa maalin. San Francisco Maraykanna weli maalin buu inaga dambeeyaa oo maanta hadday tahay khamiis iyagu weli waxa ku jiraan Arbaca, meel aanu eedaan ka baxayn oo lagu xusayn nabiyullaahi Maxamed mashruuf. nabiga Muxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu yidhi ninkii ammaanaya maadixii weynaa, muxamedow ilaah baa magacaaga maqaamkaaga sheego, magacaaga koriyo magaciisa kugu ladhay, maxaa hadhay ammaaneen Mustafa idhaahdaa buuri. allahumma salli calaa sayidina Muxamed. intii munaasabadan lagu weyneynaya dhalashada nabigu socotay ayaa waxa aqoonta ay u leeyihiin diinta islaamka ku soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata madaarista kala duwan ee dalka. calayhi salaatu wasalaam. walaalayaal, wax badan waxaad maqashay mawliidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. daliil looma hayo, waa shay bidca, waa shay aan sugnayn. walaalayaal, mawliidka rasuulka calayhi salaatu wa askaa tasliim waxa uu leeyahay muxuu hayay daliilooyin fara badan kuna baysgaraysan ama ku dhisan sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka kariimka. walaalayaal, munaasabadan lagu weyneynaya dhalashada nabigeena ayaa lagu soo bandhigay gabayo lagu ammaanayo nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. ugu dambeyn waxaa halka hadal ka soo jeediyey Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta, waxaana hadaladiisii kamid ahaa ku fadliga badnaa. waxaana leenahay cid kasta oo ku faraxda kulanka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay soo galayaan shafaacada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. cid kasta oo kulankaasi madmadow gelisaana runtii waxay soo galayaan iyaga laftoodu shafaacada madmadow bay ka geli doontaa biidnillaahi baari. waxaana leenahay rasuulka xafladiisa waxa ku farxa jamiica alislaam, islaamka oo dhan meeluu joogaba kulanka rasuulka iyo dhalashadiisu islaamka oo dhan farxad bay u tahay.